kulanti waxaan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan kula sheekaysan doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud anagoo uga mahadcelinayna aqbalaadda uu TV-ga Kalsan ka aqbalay inuu waqtigiisa wax ka siiyo. daawadayaal barnaamijkan madaxweynaha kulamo wadaagi doono arrimaha siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo xaaladaha kale ee dalka ka jira oo aan hubo inaad jeclaan lahayd in aan fursadan idinkaga faa'iideeyo waxna idinkaga weydiiyo. balse waxaan barnaamijkan ku eegi doonaa nolosha gaarka ah ee madaxweynaha iyo weliba isbarbardhigga waqtigiisii hore iyo waqtigan oo uu yahay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed iyo dabcan waxa maanka madaxweynaha ka guuxaya ama uu jeclaan lahaa inuu bulshadiisa u qabto si ay taariikhda ugu gasho. madaxweyne ku soo dhawow TV-ga Kalsan iyo barnaamijkaba waxaan rabaa ugu horeyn aad iga bilowdo bal meesha aad ku dhalatay taariikhdaada yar oo kooban oo aadan aad ugu sii fogaan. aad baa u mahadsantahay, soo dhawow. waa mahadsantahay. bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. aniga sida dadku wada yaqaanaan Xasan Sheekh Maxamuud la yiraa. aabahay nin wadaad oo ganacsada ah oo ahaa, hooyadayna hooyo guri joog ay ahayd. aabahay wuxuu dhintay 12 sano anoo jira. waxaan ku dhashay magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan 1955. hooyaday soo kurisay. marka waa tahay aad baa mahadsan tahay. waxaan rabaa marka inaan bal xasuustaada dib u celiyo. dugsigaaga quraanka ardayda kula dhigan jirtay meesha uu ku yaalay iyo macallinkii waxaad ka xasuusato. aad iyo aad aan xasuustaa dugsiga quraanka ee magaalada Jalalaqsi ayaan quraan ku bartay. dugsigayga meesha ku yilaa hadda waa bartamaha magaalada. aywana magaalada banaankeeda ahaa. sax. meel magaalada ka banaanka oo cabaar loo soo socdo oo magaalada ka baxsan ku yila birigaas. laakiin hadda magaalada bartamaheeda ku yaala. saaxiibadeydii aan isku dugsiga ahayn qaar badan oo kamid ah wali deegaankii iyo dhulkaas ay jiraan. qaar kamid ah muxuu ahaay magaalada Muqdisho iyo caalamka kala joogaan wali waan macallinkii macallin Ibraahim aadan xasuustaa in kasoo sanadahan dhow aanan arago muddo hore oo fog igu dambeysay. waa tahay aad baa mahadsantahay. dhanka waxbarashada iskoolka maadada ugu jecleed ardayda wax kula baranaysay ma xasuusataa iyaga meesha uu ku yaalay? iskuulka elementaryga horta Jalalaqsi aan kusoo dhameeyay. waa gartay. magaalada Muqdisho aan imiday markaan bilaabayay intermediate-ka fasalka shanaad. dugsiga la yiraahdo 20 October oo magaalada Muqdisho ku yaalo oo markaas kacaankii uu dhisay ayaan ahaa ardadii ugu horeysay oo fariisato iskuulka markii la furay ayaan kamid ahaa. kadibna dugsiga sare farsamada gacanta ayaan kamid ahaa. maadooyinka runtii marmarka qaarkood waxay ahayd maadooyinka anigu aan u jeclaa horta waxay ahayd taariikhda iyo maadooyinka socialkan ugu jeclaa. laakiin berigii aan intermediate ka soo baxay ee secondary la gelayay ayaa waxaa socday boom ama rabitaan farsamada dawladda ayaa markaas waxay u sameysay propaganda aad u xoog badan tacliinta farsamada. markaasaa weliba waxaa lagu xiray ardayda kuwa ugu fiican ee grade fasalka 8aad ka soo baxa inay geli karaan oo kaliya. anigu marka ardayda ugu fiicnaa kamid ahay 96% yaan uga soo baxay dugsigii grade 8kii. marka groupkii saas ahay oo dugsiyada sare farsamada ku galay grade-kaas iyo buundada iyo muxuu ahay wajigaas cusub wagaa la bilaabay. dugsiyada farsamada awal dadka buundadooda liitaa la geyn jiray. dawladda ayaa siyaasadeeda berigaa bedeshay oo dadka markiska ugu badan leh inay dugsiyada farsamada iyo engineering ay aadaan. saasaan dugsiga farsamada ku galay laakiin aniga hobby ahaan artskaan jeclaa jiray. waa tahay dabcan qof walba marka uu yar yahay waxbuu jecel yahay inuu ku cayaaro. markaad yareed maxaa ku cayaari jirtood jecleed? intaan joogay Jalalaqsi iyo intaan xamar imid waxaan aad u jeclaa dabaasha. xaggana webigaan ku dabaalan jiray. inta markaan badda aad iyo aad u dabaalan jiray. dabaasha hoobiyaan u jeclaa. cayaarta kale ku soo xigtoon jeclaa waxay ahayd volleyball-ka. yaan ayadana berigaa hore cayaari jiray. waa mahadsantahay madaxweyne. nolosha waagaas dad badan oo waxaa laga yaabaa barnaamijkan daawanaya in ay haddaad isbarbar dhigto dariska dhalinyarada markaan ahayn dariska anagu waagii hadda dowladnimadu jirtay balse dadku isugu xirnaayeen see isku jeclaayeen dariska maanta jooga iyo dariskii hore siday ahayd? noloshaas hore horta waa mid aad iyo aad qurux badan ay ahayd runtii. ma oraah oo ingiriis xigmad ingiriis oo dhahaysana way jirtaa old is gold. yes. wixii hore mar walba wixii hore mar walba way fiican yihiin. noloshii hore oon kusoo kornay nolol degan dhib aan lahayn maciishadu aanay dhib lahayn
dadku uu kalsooni badan iskaalmaysi badan iyo ay jirto oo muxuu ahaaye dadku aanan waxa dhibka badan hadda jira iyo mararka qaar gurigan marka laga caroodo guriga kale la iska seexdo kii raashin ka karsan yahay la wada cuno la isla seexdo dharka la sheergareeyo la kala qaato yani waxaa jirtay waalidiinta qaarkood aniga allah naxariisto hooyadan xasuustaa marmarka qaarkood markay dhar ii gadayso saaxiibadeen waa iiga gadi jirtay aad iyo aad yani meeshii aniga maalan suwaal shaati la iibi lahaa 2 shaati aniga saaxiibkay iyadoo naloo iibiyey oo hooyada inoo iibisaan xasuustaa maadaama labadeena ay 2 surwaal 2 shaati loo iibi karin aniga loo kala baray ninkaas saaxiibkay oo ahay oo guriga ina imaan jiray oo isla socon jirnay marka waalidkuna waalidkaas runtii aad iyo aad u qadarin badan oo ilmaha iyo dadka isla socday saaxiibtinimada jecel guryaha iyo noloshuna way jabneed waana yareed waana sahlaneed dowladna way jirtay oo noloshaas fududaynayso isku xir haddii amniga xaggiisa hadday tahay iyo meelo dadku isku xirmaan oo isku yimaadaan oo cayaaro sportsa la abuurayaa campaigna jiro barnaamijyadii oo dhalinyarada loo abaabuli jiro ceel jaallaa uu ka mid ahaayo horumarinta reer miyiga ay ka mid ahayd oo dhalinyaradu isku baranaysa oo la isdhexgalayo oo la isla qariibayo oo la isla shaqaynayo duruufahaas oo dhan waxay saacideen dadkii hore inay isjeclaadaan marka aad soo weynaatay waxaad sii wadatay waxbarashadaadii dhalinyarada iyo bulshada kale iyo qof nooce ah ayay markaa adiga ku arki jireen dabeecad ahaan iyo dhaqan ahaan ma nin aad u xanaaq badan ma nin maaragtay furfuran ma nin maaragtay firfircoon ma nin qoyar socod ah maxaa lagu fasiri jiray waaga marka dadka saaxiibadeydii ayuu ka fiican tahay in la weydiiyo oo ay ka jawaabaan laakiin adiga nin aad iyo aad u deganaan ahay weligay nolosha intaan ka aaminsanahay noloshayda inta aan dagaalamay ama qof aan gacan isu qaadno xasuustahay ma badna aad iyo aad ayay u yar tahay marna ardayaan soo ahaa marna ardayaan ku dhex jiray aad iyo labada macalinaan ahaa marka waa meelaha ugu rabshadaha social dhinacaas mujtamaca aadaan ugu dhex jiray marka u malayn maayo dad oo saaxiibada in la soo helayo xasan sheekh waa tahay aad u mahadsan tahay goormay kugu dhalatay inaad Soomaaliya mar madaxweyne ka noqoto wallahi saan ku sheegay aniga weligeyba arrimaha bulshadan ka shaqayn jiray 1981 aan jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ka qalin jibiyey macallinaan noqday ilaa 90kii dawladda ay ka burburaysa macallinaan ahaa burburkii markuu dhacay kadibna dadkii u istaagay bal inay tacliintii soo nooleeyaan haddana ka mid ahaa ilaa aan kaambeynkii doorashada iyo madaxweynenimada aan ka soo gelayay oo aan u istaagay madaxweynimadana macallinaan ahaa macallin aan ahaado maamulo dugsi maamulo maxaan ku hormuud jaamacadeed level kasta un tacliintaan ku dhex jiray weligeyba marka taas waxay bartay inaan dadka bulshadeeda inaan barto horta duruufahooda dhibaatadooda khaasatan 20kii sano ee hadda ugu dambaysa burburka lagu jiray dadka Soomaaliya waxaa intaa ii dheereedo oo fursad kale ayadana ii samaysantay waxaan ka mid ahaa hay-ad ka shaqaysa cilmi baarista weliba arrimaha muxuu ka raadiyay siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo dibdhiskooda iyo ka shaqaysa ayaan haddana muddo dheer oo 6 sano camal ahaan ka soo shaqeeyay oo aan la soo joogay ma 10 sano ah ayaan ka soo shaqeeyay ayadana hay-adaasi shaqadii aan ka hayay cilmi baaraan ku bilaabay madaxa muxuu ahay qaybta cilmi baarista ku-xigeenka muxuu ahay agaasimaha hay-adaan noqday 10kaas sano waxaan fursad u helay Soomaaliya oo dhan inaan soo maro oo barato oo gobolada Soomaaliya oo dhan aan tago intooda badan xataa degmooyinkooda aan tago inaan ka qayb galo dhowr mar dib u heshiisiino beelahu ay ku sameyseen gobollo kala duwan ilaa Jubbada Hoose laga soo bilaabo ilaa Mudug lagu geeyo si rasmi ah Puntland iyo Somaliland si kala duwan ayaa ayagana aan u tagay taas marka waxay aad iyo aad ii sii tustay aad ii sii bartay muwaadinka Soomaaliga caadiga ee meel fog ku nool ma kan xamar ku nool kaliya iyo kan beledweyne iyo baydhabo iyo Kismaayo ku nool kaliya laakiin tuulooyinka fog dadka ku nool nolosha ay ku jiraan sida ay yihiin iyo waxa ay mudan yihiin laakiin aanay haysan aniga iyo saaxiibaday dad badan saaxiibada waxaan bilaabnay dood war maxaa dalkani maxaa laga qaban karaa marba waxbaan isku daynay tacliinta markaan ka shaqeynayay waxay ahaday contribution iyo ka qayb qaado dhibaatada dalkaaga haysato cilmi baarista markaan ku jiray waxay balbaro oo soo saar dadkaaga xaaladooda Soomaalida kalena ha ogaato aan fursad u helin ajnabiguna ha ogaado sidaas daraadeed publications badan oo ama aan anigu qoray ama aan wax ka qoray oo qaarkood caalami ah yihiin ayaa jira intii marka kadib weli waa ku sii qanci waayay
inay intaasi ku filan tahay marka way jiraan soomaha saaxiibo kugu dhiirigeliya of course discussionkaas iyo doodahaas oo dhanba igala qaybgalaya qaar ilaa maanta aan isla soconno taas marka waxay nagu dhiirigelisay war waxaan aan galna markaan bal aan anaguna aan inta gelaysa ee raadinaysa aan noqono oo model aan noqono hal baahi oo jirtaan ka jawaabeen dowladda iyo dowlad dhisida Soomaaliya in loo arko meel xun lagu fashilo dadka xunxun ee corruptionka iyo laaluushka iyo waxa ka shaqeeya tagaan kuwa dadka dila ay tagaan saas masawir noocaas ayaa mujtamaca dhexdiisa nooga soo baxay marka anagu waxaan ku warbar anagu aan galno hadii dad badan si u arkaan war nimankan waaba fiicnaayeen meesha haday tageen ama la wada tagi karaa si ay u timaado waa taala ma santa madaxweyne markii aad doorashada ku guuleysatay habeenka caalamka dhan laga daawanayay oo aad soo istaagtay madaxweyne lagu yiri habeenka maxaa dareentay maxaa maskaxdaada ku soo dhacay maxaa يعني ساحل كل مقدار هبينك runtii habeenkaasi waxaa meeshaas horta ku dhamaaday safar dheer oo la soo galay aad safar kale cusub uu ka bilowday aad safarka dheer oo la soo galay campaignkii iyo dadaalkii iyo isqaabeyntii iyo sawiradii muxuu ahay visionka la hiigsanay waxaa soo dhan mudday soo ahaayeen ma aha markii madaxweyne la yiri laakiin roundkii labaad ee doorashada markii la gaaray runtii waxaa igu soo kordhay culays iyo cabsi badan aad markii hore rabitaan badan wuu ugu jiray laakiin markii xaqiiqadii xagga xasan loo yahay culays badan iyo walwal badana meesha igaga bilowday runtii walwalkaas oo ahay safarka cusub aad safarkii hore waa soo dhamaaday laakiin safarka cusub oo la galayay walwalkiisa ahaa wax badan oo walwalka markaa igu bilowda ana weli way jiraan waa valid weli oo way taagan yihiin yani walwalkaasi wuxuu ugu weeyahay waxa aan anigu rabo kow midda labaad waxa dadku ay iga rajeynayaan ma la imaan karaayo ma xaqiiji karaa mase cabsi iyo walwal badan oo weli waa taagan dad badan waxay yiraahdaan ma habeenkii markaad guuleysatay anigu meel laga soo wariyay ma garan karo laakiin waxay dhahan madaxweyne xasan sheekh markaan uu istijaabanayay laakiin wuxuu rabay xilligan ma ahayn xilligiisa wuxuu rabay afarta dambe inuu u diyaar garoobo oo hadda waa istijaabinaya laakiin tijaabadii ku guuleysay arrinka maxaa jira sheekaa jirta oo aniga iyo nin saaxiibkay ah oo aan aad u jecelahay saaxiibana dhex martay markaan go'aansaday inaan siyaasadda galo anigu siyaasaddan galaya yaa nin saaxiib i yimid inuu nin fiican tahay Soomaaliyana maanta dadka fiican waa ku yiri waa degdegaysaay mad waxoogaa u kaadisid marka hal su'aalaan weydiiyo waxaa yidhi haddii aad ii sheegto waqtiga ay ku habboon tahay oo aan hadda ahayn meeqa sano kale aan sii sugaa si waqtiga u habboonaa loo gaaro sanad kale 2 kale 10 kale haddii waqti go-aan aad ogtahay uu jiro waa kaa aqbalaya 3 sano kale 4 sano kabacdi meeshaana la gaaraya xaqiiqa meeshaasaad ka bilaabi kartaa laakiin haddii aan waa weydi marka wuxuu dhahay ma garanayo dhahay waqti ay ku habboon tahay then waqti aan waa inuu bariyo aan la ogeyn ma sugi kartid meel uma fadhiyi kartid waqti inuu imaanayo in kale aan la ogeyn marka gaas miday ahayd midda kale oo saaxiibkay uu qabay waxay ahayday dagaalada sokeeye burburka markuu dhaco ee laga soo baxayo dadka hogaamiyaasha ee ku hormara ee burburkaasi ummadda inay ka soo saaraan u istaaga ee ummadda meel ka soo saaro xukunka iyo macaansigiisa dambe kuma raaxaystaan meeshaasi ku baaba'aan marka midaasi waqtiga aan sidaas ugu jaa midaan waxay anigu hadaan ku guuleysto inaan sabab u noqdo Soomaaliya meesha joogtahay in wax yar ay hor uga sikato then intaas muhiim ma aha inaan sanooyin badan oo muxuu aan joogo meesha aan kuma imaan xoog kuma imaan qora caaradiis codka dadkaan ku imid ma hasantaa ayadana ku tagay hadii aan waa tahay madan madaxweyne markii hore qof caadi ah ahayd waxaad ku dhex jirtay bulshadaada waad lugayn jirtay BL-kaad raacaysay nolosha bulshada iyo dadkaad wax ka ogeed hadda waxaa tahay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed waa laba darajo aad u kala fog bal isbarbar dhig maxaa iska ka bedelay dabeecadaadii maxaa iska bedelay dhaqankaagii maxaa iska bedelay saaxiibadaadii iyo noloshii hore iyo nolosha maanta wallaahi wax aad iyo aad u weyn ayaa iska bedelay aniga horta inta badan 22 sano burburka dawlad la'aanta iyo dawladii ku meel gaar ka ahay dheeraa magaalada Muqdisho ku noolaa oo aan joogay weligii intaas aan joogay staff ma yeelan
security staff iwaardiyey aniga ma yeelan gurigaygana security staff ma yeelan dadkaasaan la noolaay magaalada muqdisho marba meel u qax marba meel ka qax degmooyinka magaalada muqdisho ku yaala degmo aanan soo degin oo aanan kusoo noolaan 20 sano ma jirto mararka qaar jidadka kaa xirmaya of course iyo xaafadaha la kulmaysa xaafadaad ka cararaysaa gurigaaga iyo waxaaga dhamaad ka cararaysaa mid cusub iyo nolol cusub meel kale ka bilaabsa waxaasoo dhan haddana kalsoonidaasaan qabay markaan siyaasadda soo galo baa igu horreysay inaan security wax yeesho marka hadda waagaas marka nin xor ah oo jamhuuriyadda meeshuu doono u safra oo xaafadaha meeshuu doono aada oo meeshuu doono maxaa kale saaxiibadiis kula qadeeyo oo kula casheeyo la fariista yaan ahaa maanta ma ahi xorriyadaas waa iga tagtay xor ma ahi maanta wiilashaasaa imaamulaha meesha waqtiga aan baxayo meesha aan tegayo maxaan ku rahaa saacadaha aan joogayo iyo cidda aan arkayo dhammaan kuma xirna go-aankayga anigu ma go-aansan karo laakiin dad kalaa iskale oo shaqadoodii tahay wax ka go-aan marka xorriyadayda qaar badan oo kamid ah oo privateka eedaan luus gareeyey laakiin dee in kaloo badan oo privilege ah ama awoodo kale wax kalena waan helay marka noloshooda way ka duwan tahay dabcan dabeecaddan waa ka duwan tahay dabcan saaxiibada waa ka duwan yihiin waxyaabaha ugu daran waxaa waaye anigu family maanan ah weligay inaan safar meel ku maqana qoyskayga aniga ma kala dhexin iyo carruurteyda waxaan kala maqanahay hadda marmarka qaarkood aanan is arag sanadka lasoo dhaafan madaxweynaha qaarkood 6 bilood inaan is aragaa suurtagal waa su-aashaas dhanka maareynta waqtigaaga hadda iyo waqtigii hore wax badanaa iska bedelay adiga noloshaada martee u wanaagsanayd markii hore iyo hadda wal aniga noloshayda qof aanad mugriyaatayda hore ay qurux badneed oo ii wanaagsan aan sagarta xilligaas oo aan jeclahay taasa ii wanaagsan laakiin middaani waa mid ayadana nooc kale ah macnaha inay xun tahay oo kaliya waaba usoo bareeray laakiin waa kala duwan ka duwanta oo adiga maanta hadda adiga ma ballamin inaan is aragno qof kale kula ballantay soo martay marka dadkaasaan aan wada xukumo awalna qofka kula qabanay adigana qofka telefoon inta isoo diro ku imaana amaana inta u diro waa ku imaana maanta ma hebel ma aadna marka soo jasiiro maanta ma u dabaal doono maanta noloshaas xafiiskaaga goormaa timaadaa oo shaqada ka bilowdaa goormaas ka rawaxdaa xafiiskayga xafiis caadi ma shaqada Soomaaliya taalo dhan shaqo caadi ma 24 saacadood maalintan ugu yarahay 18 saacadood aan shaqeeyaa 18 saacadood ugu yarahay on iraado maanta waa fiicanahay maalmaha kalena ka badan aan shaqeeyaa maalmo badan oo kamid ah maalmahayga soo dhaafay xafiiskayga dhexdiisa salaada subax aan ku dukaday dhex fadhida anoo subaxdiisaan u imid u fadhiya markaasaan intaan baxan guriga tagaan 2 saacadood oo iyo hadaan naab ama inta aan soo noqdo hadana marka shaqada shaqo caadi ah ma aad u culus waqtigeeduna aad u culus yahay aniguna inaan xadido isku dayo laakiin waliba saacadaha yar ka taa waa la xadidaayo issue oo caafimaadayna qalay marka aad saacadii waa dheeriyay shaqada kullu marka xafiiska joogto shaqaad ku jirta ummadii baad u shaqaynaysaa ummadii oo dhan baa ku imaanaysa kulamaad bulshada la qaadataa wayna kala duwan yihiin maxaa ugu mudan ay kala hadlaan dadku markay ku yimaadaan mase jiraan koox ama qof kaliya kuugu timid madaxweyne inay kugu biiriso talo waxtar u ah dalka iyo dadka dabcan way jiraan dadkii yimaada aad iyo aad u farbadan yihiin shaqada aan qabtaa inteeda badana la tashi ayay u badan tahay la tashigaasoo formal ahoo ama baarlamaanka ama wasiirada ama dad lamid ah oo issues mucayana qadaayado mucayana oo khuseeya dadkaas iyo mid open oo dadweynaha dadka intay i yimaadaan ayagu asbaabta igu yimaadaan markay i weydiiyaan anigu aan su-aalo weydiiyo oo aan la sheekaysto intaba way jiraan dad marka runtii cabqariyiin ah oo creative ah oo maxaan ku irahdaa aaraa cusub afkaar badan xambaarsan dowladnimada jecel aad iyo aad ay u badan yihiin weliba laakiin dee mahmahdii ahayday dhihidda iyo samaynta badaa u dhexaysa yaana haysata waxa qurxan iyo waa naqaan samayntoodiina xoogaa problema insha allah waa gaaraynaa haddaan dadaalno kolley hurdadaada iyo waqtigaaga waad ii sheegtay waxaan rabaa inaan ku iraahdo kursiga madaxweynaha waa aragtay waa loo tartamaa hadda tartankii aad usoo gasho adkaa iyo juhdigii kuwo kale hadda loolan ugu jira meel kasta madaxweyne ha la yidhaahdo iyo waxbaa socda kursigaani daal iyo raaxo muxuu leeyahay bal dadka u macnaa hadii lagu yidhaha maxaad ku macno leedahay wallahi kursigaani daal uu leeyahay raaxo ma laha wax raaxa ma laha daal dhafar saacado badan walwal
marmarka qaarkood cabsi oo aadan naftaada u cabsanaynin inay 10 milyan oo Soomaalida aad u cabsanayso ama u turayso ama u walwalayso oo adoo saacado dheer shaqeynay marka qaarkood sariirta hadaad tagta aadan hurdi karin haddana yaa ku soo maraya marka horta raaxa ma laha laakiin dhinaca kale raaxa uu leeyahay raaxada kale uu leeyahay waxa waaye achievementska markaa wax gaarto wax xaqiiqo markaad qalbigaaga ku qanciso qof Soomaaliya dhib haysta ayaad ka qaaday markaad magaca Soomaalinimada waxbaad ku soo kordhi markaad dareento raaxaysiyo leeyahay waxa kale oo rabaa kursigii oo la soo raaxa doonto ma aha kursigaani qofka imaanaya horta ama soo raadsanaya waraadii badna iga horeey ama kuwa dambe imaan doonaba waa qof anigu intaan qabo raadinayo fursad dadka Soomaaliyeed aniga malaayiin Soomaalida ay joogtahay wax badan ma dheeri Soomaaliya caadi oo shal caadi ah laakiin hal midaan dheerahay fursadaan helay dadka Soomaaliyeed waxay isiyeen fursad ah inaan muujiyo wax aan qaban karo laakiin kuwa iga wax qabad fiican laga yaabaa inay joogaan oo madaxtinimada aanay u tartamin oo fursadda aanay helin marka anigu waxaan dareemayaa dadku inay abaal i gashadeen oo ay kalsooni isiyeen oo ay fursad isiyeen aan ku muujiyo bal haddii aan wax qaban karo inaan wax qabto marka inaan ka abaal dhaco ma doonayo abaalkaasi waxaan aad iyo aad committed oo ku dadaalayaa dadku in ay dareemaan ay dhahaan nacam muddada yaradoo meesha jooga alla ilaahay waxbuu qabtay waxbuu dhaqaajiyay waxbuu qabtay in la yiraahdo aad u jecelahay waa tahay ilaahay kugu guuleysay waqtigaada firaaqada maxaad qabataa dabcan waqti waad haysaa oo nasashaa maxaad samaysaa waqti firaaqada aad u yar yahay intaan ka gaaro waxna waan aqriyaa fursadda ii saamaxdo inta kalena family-gaygan aan siiyaa waqti yar wixii soo haro oo la heli karaa qofku inuu ka shaqeeyo arrimaha bulshada iyo inuu ka shaqeeyo siyaasadda kee u wanaagsan labadaba maadaama adigu aad ku shaqeyso wala labada arrimood laba arrimood aad muhiim u ah arrimaha bulshada horumar badan laga gaari karo hadii siyaasaddu ay qasan tahay qas siyaasadeed dhaxdiisa ma aragtay qas siyaasadeed dhaxdiisa wax ku hagaagi kara ma laha sax dalku waa sababta aan labada hadaf ee ugu dambayso inaan arko anigu aan jeclaan lahay dadkaygan aan la wadaaga ay tahay Soomaaliya mid ah iyo Soomaaliya degan sax Soomaaliya degan marka la leeyahay waa deganaansho amni deganaansho siyaasadeed iyo deganaansho dhaqaale saddexdaasi waa saddex waxyaabood isku xiran oo midba midka kale xoogayo kaabayo si waxaynayo hadii mid maqan marka hadii deganaansho siyaasadeed ay laadahay maqan tahay arrimaha bulshada iyo arrimaha dhaqaalaha iyo waxba ma socon karaan marka deganaanshaha siyaasadeed ka shaqeynta siyaasaddu waa muhiim siyaasaddu macnaheedu waxay u taagan tahay inay u adeegto arrimaha bulshada ay horumarayso ay qurxiso labada qofku inuu ka kala shaqeeyo labada qofba meel uu hibo u leeyahay qofba meel uu jecel yahay marka qofba meel uu aaminsan yahay inuu wax ka keeni karo qofku meeshuu aaminsan yahay inuu wax ka keeni karo inuu ka shaqeeyo ayaa habboon aad mid kasta aad baan kaaga mahadcelinayaa weli inta aad xilka madaxweynenimada hayso qof inta ku yimid ku yiri madaxweyne waa qaldan tahay arrinkaas in sidaa loo wajaha habboon mase ka aqbasha waa dad saas waa badan yihiin in badan ka aqbalan waa badan yihiin runtii aad u badan yihiin dadka oo criticismka iyo waxba loo sheegi karo lama saxay marka constructive yaa waa ku raaxaysanaysa laakiin marka aan constructive aynu criticism ilaashanayo oo criticism xun oo yahay oo wax dhisayn xataa anigu awoodaan u leeyahay inaan way dhacdaa in waxa arrintaas qof uu ku yiraahdo ama siyaasada ama qof caadi ah ama qof muwaadin Soomaaliyeed arrintan sidaan ku habboontaa taas waa ku qaldantaa madaxweyne aad iyo aad wadna ka aqbasha kuwa saxda waan ka aqbalaa gabagabadii cuntadaada ka warno aad ugu jeceshahay hadda cuntada cuntada traditionalka Soomaalida hadana waa taqana bariis iyo baasti canjeera la cunaa iyo cambuulo lakada madaxweynaha tahay inta suuban ku dhex jira kama ku dhex jirta wali dishka Soomaaliga cambuulada iyo canjeerada iyo baasti bariiska u dhaxeeya ku jira waa tahay suugaanta iyo ciyaaraha say isku tayn aad iyo aad u jecelahay anu ma ciyaaro suugaanyahan iyo gabaymo tiriyo laakiin aad iyo aad u jecelahay ciyaartaadii kubadda iyo ciyaarahaas dhinacaas wataan ku sheegayo sportska waxa labada shay ugu jeclaa dabaasha iyo kubadda maxaa waxay ahayd volleyballka welina ciyaaraha hadda TV-ga aan fiirsada aad u jecelahay badawata sportska aad u dadka ku dhagan oo adabtiisa ku amaahi laakiin markaan fursad helo inaan fiirsado waa jecelahay maxaad ugu jeceshahay inaad maqasho ama lagu soo sheego waxyaabaha u jeceshahay inaad maqasho waxyaabaha ugu jecelahay inaan maqlo waxay tahay dad Soomaaliyeed oo colaad ka dhaxaysay heshiiyay waxyaabahan ugu jecelahay waxa kamid ah
dagaal meel ka socdayaa istaagay. waxyaabaha ugu jeclaa waxaa kamid dad Soomaaliyeed inta isku yimiday dalkan sidee hore loogu mariyaa taladooda ku dhaqaaqay. waxyaabahan ugu jeclaa waxay tahay inaan arko wiil Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed oo wax baratay ama wax bartay oo doonaya dalkiisii in uu wax ku waxeeyo. aqoonta iyo technology-ga iyo waxa dalkan u baahan yahay awood aan ku iibsanna ma lihin. aqoontaas ma soo iibsan karo. aqoontaasina dad badan oo Soomaaliyeed ku jirta kuwooda inta soo haliira ka soo tagay ee yimiday in ay maxaan ku iraahdaa dalkii wax u qabtaan raba. jaamacadda macallin ka noqday, iskoolka macallin ka noqday, klinikada dhakhtar ka noqday, maxaan ku iraahdaa wax uu qaban karo yimiday ee ganacsiga furay, supermarket ka sameeyay, hotel ka sameeyay, waa kuwa aan dadka ugu jecelahayn waa kuwaas meel kastoo ay Soomaaliya joogaan. waa tahay aniga iyo inta ku daawanaysa ee Soomaalida ah ee ay ka go'an tahay dalkooda inuu horumaro, maxaad ku haminaysaa oo aad jeceshahay muddada aad noo tahay madaxweynaha Soomaaliya inaad qabato oo aad ku guuleysato si taariikhda lagu xuso? mushkiladda Soomaaliya ee muddada dheer ee soo jirtaahi horta aniga teeramka 4 sano ah oo hadda sanad uu ka baxay kuma dhamaanayso sax laguma dhamayn karo. laakiin waxa aan aad uga haminayaa oo jecelahay waxay tahay aasaaskii xalka inaan dhulka dhigno ama aan dhaho mirihii nabadda ama dowladnimada maanta inaan dhulka ku beero biri si ay u soo baxaan. aasaaskaas oo aan ku tilmaamay 6 tiir oo siyaasadda ah oo dowladdu maanta ay leedahay ka dhex muuqda. aasaaskaas oo aan ku tilmaamay dowladda hadda ay qabato oo aan u aragno inay yihiin wax kale ma aha, laakiin rukumadii aasaaska wax ku dul dhismi lahaayeen wixii la dhisi lahaa way dambeeyaan. dadka dambaa laga yaabaa inay waqti badan u helaan dhisaan, laakiin sagxad meel caadi inaan laga bilaabin meel asaas uga tagto abuuran yihiin dhinaca amniga, dhinaca dowlad wanaagga, dhinaca maamulka hantida dadka uu leeyahay oo dowlad wanaagga ka mid ah, dhinaca maxaan ku iraahdaa qawaaniinta iyo sharciga iyo xayndaabka sharciga dhisano constitutionka ugu horeeyo oo shuruucda hadda la jaan qaadi kartahay ay ka mid yihiin oo waxa soo yaalo oo aan garanayno maanta siyaasad ahaan birisan u dhaqaaqayna. constitutionku muxuu leeyahay sharcigii maxaan ku iraahdaa xisbiyada ma qabnaa, xisbiye ma furan karnaa, sharcigii doorashooyinka ma qabnaa, nooca doorashooyinka aan rabno ma garanayna. Soomaaliya meesha soo gaartay oo isdooranayso oo sharciyo iyo maxaan ku iraahdaa xisbiyo leh sharciyo ay ku dhex shaqeeyaan ku tartamayso oo barnaamij iyo horumar dowladnimo laga hadlaayo aan laga hadlayn yaa talahay yaa reebay aan laga hadlaynin laga hadlayo anigu ajandahana leh ajandaas waa waqti dheer iyo fogaansho, laakiin bilowgeedii inaad uga tagto haddii aad ka tagayso haddii alla yidhaah Soomaalina ay degan tahay nabad tahay oo ay maxaa dadku ay exercise gareyn karaan ama ay samayn karaan ficil ahaan ugu dhaqaaqi karaan xuquuqdooda asaasiga ah oo in la doortay inay wax doortaan ay isugu jirto. mudan madaxweyne soo waartaa waraysiga aan kula yeeshay oo gaar ahaan TV Kalsan kula yeeshay maanta. TV Kalsan waa TV Soomaalida ku mid yahay media saxaafadda Soomaaliya guud ahaan iyo saxaafadda guud ahaanteedba waxaa la yiraahdaa waa dhagaha iyo indhaha ummadda. marka Kalsan telefishinada uu ka mid yahay, indhaha iyo dhagaha dalka uu ka mid yahay, muuqaalkiisa iyo muxuu ahaa aad iyo aad u fiican yihiin. waxaan ku waanin lahaa oo kaliya dhagaha dadkana wax fiican inay maqashiyaan, indhahana wax fiican inay tusaan. waa tahay taasha lagu jira wixii hore soo dhacay ma ka hadlan hadda ka bacdi in wadada loo socday. taas taladaada ugu dambeysay ee midaada tusaale ee madaxweynenimada ummadda uga jeedin lahayd Kalsan TV adoo noogu soo xiraya barnaamijka. aad iyo aad u mahadsan tahay. waxaan doonayaa dadka Soomaaliyeed ee daawanaya dhammaantood waxaan leeyahay waayo aragnimadii aan soo dhaafnay 22 sano iyo xilligii dowladnimadu ay naga sii burbureysay sanadihii ugu dambeeyay markaan isku geysano dhalinyaradeenna aan waayo aragnimadas lahayn inta anigu aan ka mid ah waayo aragnimada Soomaaliyeed u soo taagneed ay wax u sheegaan dadka Soomaalida inay u istaagaan dowlad Soomaaliyeed inay hana qaato dowlad Soomaaliyeed inay hana qaato xanuunka iyo dhibka iyo karaama jabka aan dareemaynahay midda aan kaga bixi karno oo kaliya waa dowlad Soomaaliyeed oo shaqeynayso. mar walba waan dhahaa dowladdaasi qiimeey leedahay loo huro
qiimi aad u qaali ay leedaho loo huro oo ah yacni wax badan oo aad naftu jeclaan leedood ku raaxaysa leed inaad ka tagtid aad iyo aad ka tanasushid aad iyo aad dalkaaga iyo kabtaada dhexdaa looga jiraa maamaadii eed inaan u bedelno dalkaaga iyo dowladnimadaadaba dhexdaa looga jiraa oo waxa keliya ee aad dad ku tahay waa dowladnimo 1 milyan oo qaxootiga oo dalalka dariska jooga kuwa Yurub tagay ilmihii laga qaatay kuwa maxaan ku iraadayay duruufaha ay galeen awgood ay u sababtay Soomaalinimadii iyo wanaagii inay ka baxaan qaarkood diintooda ay ka tagaan qaar dhaqankii ay ka tagaan waxaasoo dhan waxaan noo keeno noole waa dowladnimo la'aanta dowlad Soomaaliyeed oo xoog badan shaqeyso hal mid kale oo ku daray waxay tahay dowladdaas nooceeda dareemo badan oo waayahan waxaa socdaa cabsi badan oo laga qabo dowlad dhexe oo xoog badan dowladda xoog badan dalkan wuu u baahan yahay laakiin xoogga ayaa wuxuu u baahan yahay in la micneeyo aad iyo aad dowlad dhexe oo Muqdisho fadhida oo macalinka iyo askariga booliiska iyo kalkaaliyaha caafimaad Muqdisho ka beddelaysa oo Muqdisho ka dirayso meel walba u diraysaa taariikhdii dowladnimada Soomaaliya hore ka mid tahay maanta ma joogto mana imaanayso laakiin dowlad dhexe oo dadka isku hayn karta dalkan isku hayn karta dalku inuu kala burburo oo kala tagtagsan yahay oo meel kala jirjiraahay macna Soomaalidu macna ku yeelan mayso dadku waxa ay ku haminayaan oo ah powerka dowladnimada inay wax ku leeyihiin oo powerka dowladnimada xarunta yaala ee caasimada yaala ee muxuu ay in laga qaado oo dadka loo geeyo laakiin taas macnaheedu ma caasimada inta laga qaado dowlad goboleedka ama maamul goboleedka inuu hadana caasimad kale dhexe oo kula seexakadee powerku inuu dadka gaara oo dadka Soomaaliyeed ay arkaan inay cod ku leeyihiin dowladnimada si saas loo helaa laakiin waa inay jirtaa dowlad maamusho waxaas oo xaqiijisa inay dhacaan iskama dhici karaan iskama dhalan karto dowlad inay xagga ay fut ka soo yiraahdaan oo ay jiraan iskama dhici karto waa wax in la sameeyo u baahan maantana Soomaaliya waxa dadka Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxeeya oo nidaam ay heshiis ku yihiin ku yimiday oo dadka badankiisu ay ku qanacsan yihiin ama kamid yihiin waxa ka jira dowladda federaalka dowladda federaalka intaani ayadu dhalan kuwa hore intaani dhalan ayaa dadku inta isku tageen wax lagu heshiiyay waxa lagu heshiiyay waxaas lagu heshiiyay wax ka fiican lagu heshiin karo ma jiraan waa suurtagal su'aashaas inay taagan tahay 4.5 in awoodda dowladnimada lagu qaybsado xilliga ku meel gaarka ah yaa lagu ballamay wax ka fiican oo lagu qaybsan karo ma jiraan ma diido way jiri karaan laakiin maanta taas lagu heshiiyay tii dowladdan ku dhisantaa reer kasta Soomaaliyeed cod buu ku taru ku leeyahay qaarkiis waa laga yaabaa in meelaha qaarkood ku doodi karaan waana laga badsaday si aan u dhicin waliba anagu 0.5 waa baabi'inay oo waxaan ka dhignay 5 laana arintu sharci ma ahayn isfaham ay ahayd oo loo arkay danta markaas taagneed dhibaato markaas jirtay in loo gudbayo waa looga soo gudbay anagu markaan midna waxaan aragnay maslaxad ah dadka Soomaalidu nus iyo qabya iyo magaciisi ma kala laha duruufaha keenay duruufo in oo qof kasto Soomaali ah oo siyaasadda ka qayb galo asoo madaxiisa kor u taagan yahay oo aan hoos u rogmanayn oo aan muxuu ahay in la keeno dadku ay mar helaan conceptiga ama fikirka muwaadinka waxaa la yiraahdaa waa dad siman sharciga u siman xuquuqda u siman waajibaadka u siman marka midna musaatay midna kaamira tahay waxaan dareemayna in ay waana ka gudubnay marka dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay reerkii awrta ka dhuntay oraadii ahayday nin orod ku roon nin aayad ku roon allayo awrti dadka Soomaaliyeed dhammaantood waxaan leeyahay ilaahay ha tala saartaano waa allayo dowladnimo waa daawadayaal guud ahaan barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ugu magac darnay xusuusta qofka oo uu marti noogu ahaa toddobaadkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud inta ayaan ku soo gaabinayaa dib intaan ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale taa aniga Cabdiqaadir Dulyar oo idin leh nabadgelyo wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.